السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا دعوانيسا maanta waxaan hortaaganahay Rayaan K General Construction Company xafiiska oo hadda hawshiisa maanta ay gabagabo marayso. Waxaan u leenahay dhammaan asxaabta hawshaas ayaa idiin haynaa. Waxaan inay aad iyo aad ugu qanci doontaan desaynada ay idiin hayno hadduu Alle idmo. waxaa halkan hadda ka socdaa hawshii lagu hagaajinayay xafiiska laguna qurxinayay derbiga. Dadka qurbaha jooga intooda badan waxay isticmaalaan waxa la yiraahdo wallpaper ama tapet oo meesha hadda inta badan Afrika ama wadamada kale intooda badan aan soo wada gaarin guryaha aan si toos loogu xirin, laakiin kana marka wuxuu sameynayaa meesha aad buu u qurxinayaa oo wuxuu ka dhigayaa design aad u qurux badan oo markaa meesha aad buu u soo saarayaa. wuxuuna weydiisinayaa inay derbiga oo dhan inuu yahay sida qaab dhagaxa oo kale ah. marka hadda derbiga u jeedaa siduu u egyahay qaabkaas, hadhowdii marka aan u dhejinana wuxuu noqonayaa nooc kale ama qaab kale oo aad iyo aad uga qurux badan. taasina markaa waxay ku sameyn kartaa qofka hadduu rabo inaan guriga ugu sameyno oo kale ama meherad in lagu sameeyo oo kale waan kugu sameyn karnaa. designo kala duwan baa jira, iyagoo fiyoora ah, iyagoo dhagaxa, iyagoo marmar u eg, iyagoo laftirkeega sawiradii adiga aad doonaysa lagu sameyn karo. marka waxaasoo dhan baan idiin haynaa. hadda wuxuu marinayaa burushkaas oo ah koolo ama xabag wax loo yaqaano ayuu sameynayaa si uu u qabsado. qof kasta oo arkaa ama maalintii hawshan aynu ku jirnay wuxuu u malaynayay markuu soo galay dhagax caadi ah in meesha uu ku dhegan yahay. runtiina sawirka ama wallpaperka meesha lagu dhejiyay waa aad quality-giisa u sareeya, sawir ahaan qurux ah oo sida 3D ah, qofka inuu taabto mooye marka hore wuxuu u malaynayaa inay waxan dhagax caadi oo toosan yahay. waxyaabaha loo baahan yahay waa waxyaabo very simple ah qofka inuu meesha gidaar ku dhejiyo. marka koowaad waa inaad qof cilmi ama aqoon u leh isku rakibista ama isku dhejinta waa inaad haysataa oo garanaya waxaan si la isugu geenayo, cabirka iyo qiyaasta jaraya. habagtii baa loo baahan yahay in la isku dheeli tiro, inaan laga buuxin lagana yareen haddii kale uu soo daadanaya. waxaa kaloo loo baahan yahay in qofka uu si qurux badan u jaro oo meesha uu iskaga imanaya iyo meesha xagga kale inuu iska yeesho, uusan noqon wax kala jeeda oo xagga uu ka bilaabanaya xagga kale, uusan yeelan buurbuur ama dhexdiisana aysan hawo gelin. qaybtan waa qaybtii dibadda. hadda boodhkii baa lagu xiray oo hawsha gudaha gabagaba ayay maraysaa. sidaad aragtaan boodhkan laba weeyaan, mid gudaha iyo mid dibadda ah. gudaha waxaa ku yaala boodh cad, isaguna Rayaan K General Construction xafiiska managerka ama CEO-ga dhabarkiisa dambe ayaanu ku sameynay desaynkaas. gidaarka waa ujeedaan ama derbiga hadda qaabka uu noqday markii aan bilaabayay iyo hadda siduu u ekaaday wax weyn baa u dhexeeya. desaynkan laftirkiisa waxaan idiga caawin karnaa qofka u baahan gurigiisa ama meherad ama hadday noqoto desaynka guriga saad u qalabeynayso iyo haddii ay noqoto dibaddaba ama xafiis hadduu noqdo ama hotel, intaba waa idiga caawin karnaa, waa idiin diyaarin karnaa. guryaha keliya ma dhismo, even guriga qalabeyntiisa iyo qurxintiisa qaabka ku habboon. taana waxaan kaa siinaynaa talo wanaagsan haddii aad u baahan tahay in lagu dalbo ama lagaaga dalbo dibadda ama dalka dhexdiisana meel allaala meeshaad doonayso ayaa lagaaga keenayaa. waxaan idin leenahay haddii aad doonaysaan in gurigiina iyo meheradihiina sidan oo kale ladiigu hagaajiyo, waa ladiigu hagaajinayaa gacmo furan. kusoo dhawaada. shirkadani waxay diyaar u tahay qof kasta oo doonaya inuu guri ka dhisto ama qurbaha jooga ama dalka jooga. waxaan diyaar u lanahay inaan guriga bilow ilaa dhammaad ilaa inaan
ku dhisno oo design-ka adiga aad jeceshahay aad doorato oo aan lagu design gareeyo. Annaguna waxaan haynaa catalog aad u weyn oo ay ku jiraan design aad iyo aad u qurux badan oo European standard ah oo quality-giisana aad u sareeyo ayaan idin dhisaynaa guryo noocaasa. Marka fadlan nagala soo xiriir nambarada shaashada ku qoran.